naagta haddii ay tahay naag hoolo leh ay tahay ninkana faqiir uu yahay naagtii asaga qabay way ku waajibtay nafaqadeeda asay ku waajibtay laakiin haddii naagtaas ay hoolo leh isagana sabool u yahay maalintaas ciid iyo habeenkeeda sabool u yahay way ku sadaqaysan kartaa zakaatu fidri naftiga inay iska bixiso oo ninkeeda sida waa yeeli kartaa baastada makaroona la yiraahdo waa la cunaa laakiin baastada waxaan rabaa in meel yar aan ka ishaaro baastada makaroonada way duleeshaa baastadaas duleesho makaroona la yiraahdo waxaa waaye ayada waxay ka ahaatay qamxi ay ka ahaatay gamadi ay ka ahaatay ama bur ay ka ahaatay zakaatu fidri hadafka laga leeyahay tawsiic caam ma aha balaarin oo miskiinka ama faqiirka loo balaarinayo ma aha maxay tahay tawsiic khaas ah way tawsiic khaaska maxaa way raashin in la siiyo maalintan ciida ah oo wax miskiin ah tabaalaysan gaajaysan in la waayo wax baahi haysan la waayo oo dawarsi laga joojiyo oo dulliga laga kor yeelo yani tuugsiga laga kor yeelo ayaa looga tiragalay zakaatul fidri waxay tahay shaciira min shacaa'ir islaam waxayna waajibtaa ramadaanka markuu dhamaado habeenka ramadaanka uu dhamaanayo qoraxda ay dhacdo ayay waajibaysaa fardu ceen waaye marka waxay ku waajibtaa qofkii zakadaas maalinta ciida ah heli karo quuta yawmihi iyo waquuta ciyaalihi ciyaal waxaan u wadaa dadka nafaqadooda asaga ku waajibtay oo waalidiin ah ama caruurtii ah ama zawjadii ah dadkaas ayaa maarday ku waajibtay zakada waxyaabaha waajibaya qadarka waajibayna waxa way saacaga waxa lagu cabiraa sida ugu dhow afar yani xafanaad af Soomaaliya waxa la dhahaa xabshan qof gacantiisa mu'tadil ah dadka oo gacan weynayn oo gacan yareyn inuu hal mar soo geliyo meel ku shubo mar labaad soo dariyo mar saddexaad mar afaraad taas saaca la yiraahdaa saacagaas marka wuxuu noqon karaa طعام way طعام la bixinaya sida rasuulka kaleey salaatu salaam ay ka ansaxday طعامkaas ayaa la bixinaya marka sharcigana kaas soo arooray in طعام la bixiyo marka zakadaas ninkaas noocaas ay ku waajibaysaa saacaga maxaa inta laga bixiyaa طعامkee laga bixiyaa wixii dalka markaas la joogo oo cunto u ah raashin u ah asaasi u ah ayaa laga bixiyaa waxa markaas raashin aan ahayn lama bixiyo fi ahdi rasuul sada Abu Sa'id al-Khudri uu sheegayo quudkanaga wuxuu ahaa uu leeyahay yani timir iyo zabiib iyo aqid aanada fadhiisatay fadhiga ay aqid yiraahdaa taas bixin jirnay buu leeyahay marka wax allaala wixii marka xilligaas la joogo raashin u ah ayaa la bixinayaa waxa muhiim ah marka طعامkaas la bixinay dalka uu joogo inuu qaalib ku ahaado way dalka uu joogo in dadka quudka markaas aad loo isticmaalo dadka ay asaasi u yahay way tusaalahan hadda dalkeena markaan joogno kulligeena waa garanaynaa raashinka asaasiga ah oo marna laga maarmayna waxa koow ka ah bariiska oo qaybtiisa sare ah wilib qaybtiisa u sareysa oo ah kan la yiraahdo xamzaga la yiraahdo basmatiga kaasa koow u ah ciyaalka dhammaan waxay leeyihiin marka dhibaato ay dhacdo bariiskayga araxa ku darin marka bariiska kan ugu sareeyo in la bixiyo ayaa afdal ah oo ilaahay aad looga dhawaasho badan yahay ilaahay quraanka wuxuu leeyahay lan tanaalul birra hatta tunfiqu bima tuhibbuun marka tusaale ahaan beled walba raashinka qaalibka ku ah ayaa la bixinayaa hadda anaga bariiska saas waa bixinaynaa baastada makaroona la yiraahdo waa la cunaa laakiin baastada waxaan rabaa in meel yar aan ka ishaaro baastada makaroonada way duleeshaa baastadaas duleesho makaroona la yiraahdo waxaa waaye ayada waxay ka ahaatay qamxi ay ka ahaatay gamadi ay ka ahaatay ama bur ay ka ahaatay xind ay ka ahaatay meeshii ka ahaataba waa markii la miisaamo waa inay miisaankeeda ku noqoto wixii la bixin jiray oo 2 kiilo bar ayaa aad u fiican ama 3 kiilo ka sii fiican ihtiyaadka 3 kiilo ama 2 kiilo bar in la bixiyo shayga la bixinayo oo la quudanayo in laga bixiyo marka baxashaas la yiraahdo makaroonadaas marka la bixinayo waa in shaciirti ama bariiski oo 3 kiilo ay u dhiganto maadaama ay duleesho ayada laakiin haddii sida lagu miisaamo nuqsaan galay nuqsaanka la diidan yahay marka haddii inta laga bixinayo waa inay la ekaato 3 kiilo bariis caadi ay la ekaato waxa
waxaa muhiima mawduucan in looga hadlo goormay waajibay marka goormay waajibay dadka goormay bixiyaan waxaa la bixiyaa xaqiiqatan khilaafa ku jira ibn rajab wuxuu leeyahay waa in la bixiyaa yowmul ciid maalinta ciida qabla salaati alciidi ka hor in la bixiyaa haddii la hormarinayo ma la hormarin karo tacjiil ma ku ansays cinda ibn rajab وعند إمامنا الشافعي سيد اللغة هي بشهر رمضان بلوغة إذا ولا بهين كرا إلهي كذا ماته ولكن أن لا دار سنين عيد أنت صلاة أنت لدكورين لجار سنين إمام أحمد يا إمام مالك وحي قبان إن لجهر مرين كرا بيوم أو بيومين عيد حل مال لجهر مرين كرا ما لهم مال لجهر مرين كرا إمام أبو حنيفة هو ليه هاي بشهر رمضان ولا جهر مرين كراب أصلا شوال أيضا الجوجا وحالي بين كراب أو شعبان الجوجا اللي بين كراب وليه لكن مذهب كأرجح جاء وكان إمام مالك إمام أحمد لما معلومات البركة كده منتهي أما هالمعلومات كده منتهي بشهر رمضان إن لبهي في عن ما هي ليدتك لسينا إمالنت محلوسية حكمة اللوجي دي محيتها إن لقد دياغو توكسي الدورسي إباهي لقد دياغو أيها لقد ربا marka waxaan rabaa inaan ku laabto qofka saaciga laga rabo inuu muusir ahaado way muusir ahaashada maxaa loola jeedaa waa inuu wax quuta yowmihi wa ciyaalihi habeenkaas ciida iyo maalinta ciida wax ka badan hadday u soo haraan kaasuu bixinaya shardi maaha in bakhaarkii gurigiis bakhaar ahaado oo bariiskii لوريال يقول بس سكرنا لوريال أوتها ما أها لكن ما لنت عيد إيه بينك عيد وح عنا السجى شخصيا عيدتك النفقة قوة جبتو إني كسر حرام واي وهي كسر هري هدي هل ساعة وياهي وبهنا يا ساعة بعضك هدو ياهي وبهنا يا هدي عرورتي تونا يهد توان كيف متكسر هالجرا وساعة لجرا هدي شن أرضي أما شن عنق ساعة قد هلي كرو شنكاس سنتاس عنق ساعة قد ديبيا هدي حل عنق كهلي كرو هكاس ديبي كرا كم واجب يسوي كل جود إنه أسود دين سدو وإيه مركا مالله قاضي كرا جوري كاغي بابور كاغي كمبيوتر كاغي موبايل كاغي وأتكوش كايسين يسي ما يا مالله قاضي كواس لو ما قاضي كمبيوتر كاغي موبايل كاغي بابور كاغي أدونك كوي ديغي لو ما قاضي عرورت هذا أو وينتيك أنجار الشقيسنا زكاة الفطر مكو واجبتها ومايا نين قانقاري حولا لكم واجبتها أبيس عنق ير نفتر كيس حدو دقالي ليه دقالي زكيس لغو بهنا ناقتا حدي أي تهي ناق حولا لأي أي تهي نين كنا فقير وياهي نين كنا فقير وياهي ناقتا يساقا قبل وكو واجبتها نفقد هذا سيكو واجبتها لكن هدي ناقتا أي حولا يساقنا السبال وياهي مالنتاس عيد يابين كده سبال وياهي ويكو صدقايسان كرتا زكاة الفطر النفتر أنا اسكب حسه وأنك سيدا ويري كرتا لكن عكس مايا السجا إنه ناقتي زكسيو زكاة الفطر دي أو السجا اسكب هنا يا معروف اسكب هنا ناقتي مسحين كرو قف كستو السجا النفقة اسكو واجبتنا زكاة مسحين كرو مسألة هذا يبغى لارنتها هدي وحكة تجينا كل يبغى دي لو يدين دوناي أو بدل لو يدين دوناي وهو خادمك كو خدنينا يو وهذا كو جوجو ومشاركة قادنا ومعينة قادنا زكاة الفطر لما سيو معناه إن السياسة واجب ومعها هذه لكن هذه محسن أتهاي متطوعة أتهاي إن السياسة ربتنا وهذا الشيء يسوى هذا إن كاب يهرب قبلنا يقولون إن لجوكته أو مشارنا وقصينا زكاة الفطر وكاب هنا هذه وايه إرتو أي ترادو فلله الحمد ونعم ولا بهنا هذه ديدن لقى ما بهنا هذا هو واجبه أنا إسكب هنا هذه ترى إسكب هنا marka zakaatul fidri masalada ugu muhiimsan aan ku soo qatimayo waxa way qiimo ma lagu bixiyaa oo bedelkii raashinkii qiimo ma lagu bixiyaa masaladaas mas'ala aad iyo aad khilaafkeeda u badan yahay way laakiin jumhuur ahli hadiisi wa fuqahaa al-islaam aktharkooda waxay qabaan in lagu bixiyo taam lagu bixiyo waa kii sharciga cadeeyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo cadeeyay in lagu gaabsado sharciga laga hormarin ayaa aad u fadilayaan marka waliba waxyaabaha lagu fadilay waxa kamid ah dadka qiimaha hal bixidhahay madhabka Abu Hanifa oo kale culimo kale mucaasiriin ayagana ay qabaan Sheekh Yusuf Qadaawi uu kamid yahay ay qabaan in qiimo lagu bixin karo masaalixda faqiirka miskiinka ayada u roon bay leeyihiin waxay ku ileynayaan haduu rabo dhuxul ku gadanaya lacagta la siiyay haduu rabo dhar ciid ku gadanaya haduu rabo daawo la aadaya
hadduu rabdha kobo ku gadan kara adi ilmihii waa ka farxin karaa alaab ay ku yaraan u gadi karaa marka anaga inaan ciriirina ma ahee inaan lacag uga dhignaa noo roon bay dhaheen qoladan kale oo ila dacaama la bixinaya meelka lama aadayo wax dacaamkii rasuulku ogaayay ama dacaam kale xilligan hadda jir aan ahayn lama bixin karan kuwa leh waxay uskanayaan xujadoodana wajihi way ayaga xoog badane waxa way waxay leeyihiin in sharciga ilaahay laga hormaro way haddii sharciga ilaahay laga hormarsay ku tahay ilaahay wuu ogaa alaa yaclamu man khalaqa wa huwa latiifu lkhabiir adoominkiis ilaahay isaga og xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka hadlayay zakaatulfidr dacaam way dhahayeen lacag way jirtay dadka lacagna way haysteen raashinna way haysteen laakiin waxaa la yidhi dacaam ha la bixiyo sababtoo ah waxaa dhici karto in marxalo suuqyada adduunka ay gaaraan ixtikaar ganacsatada ay sameeyaan waxa la yidhi ixtikaar ay sameeyaan ixtikaar hadday sameeyaan oo raashinkii ma bixinayn ay yidhaahdaan miskiinkii maxaa la siinayaa lacag maxay u taray warqadii ma ruugayaa diinaarkii ma ruugay karaa muxuu samayn karaa ixtikaar baa la sameeyey muxuu samayn karaa wax uu qaban kara lama arko laakiin haddii dacaam ha la bixiyo la yidhahdo ictikaar maba suurtagelayaba qodobkana baabi'in karaba qof kasta muslim ah waxaa ku waajibaya inuu dacaam bixiyo ee waajib ku ah midda kale haddana waxaa waaye waxaa meesha soo galayo in ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisa wax loo toosiyo ay noqonaysaa sharcigii wax loo toosiyo maslaxadii adoominkii ilaahay inuusan garanayn okay ay noqonaysaa marka masaladan aad iyo aad waxaa muhiim ah in ilaahay looga cabsado taqwo la sameeyo oo raashinka lagu gaabsado culimmada waxay leeyihiin zakada hadafka laga leeyahay zakaatulfidr hadafka laga leeyahay tawsiic caam ma aha ballaarin oo miskiinka ama faqiirka loo ballaarinayo ma aha maxay tahay tawsiic khaas wey tawsiic khaaska maxaa way raashin in la siiyo maalintan ciida ah oo wax miskiin ah tabaalaysan gaajaysan in la waayo wax baahi haysan la waayo oo dawarsi laga joojiyo oo dulliga laga kor yeelo yani tuugsiga laga kor yeelo ayaa looga talagalay taa ayada marka waxay ku xaqiiqoobi kartaa in raashin la siiyo raashinkaas haddii dab loo waayo hataa wax lagu kari loo waayo digsi loo waayo biyo loo waayo hataa ninkii raashin hayay ma dhimanay waa cuni karaa asxaabtaba yani gaajo haysto jihaad ku jiraan bariis intay arkeen bay siliis ku cuneen aan dab la saarin marka lacag adigoo sidaan ay cuni kartid laakiin raashin qaleel ah waa cuni kartaa haddii duruufta kugu qasabto baahida ku gaarsiiso marka waxaa waaye in cuntada la dhiibo ayaa afdal ah ayaa u dhow waa aslam ah yani dimada ay ku beri noqon kartaa ixtiraamka sharcigana ku imaan karaa marka waxaan ku soo khatimayaa in manhajkaas la qaato ninkii iftoodo in qiimaa lagu bixina uu yidhaahdo waa nin boqolkiiba 90 u dhow inuu gafay mubtadicina lama dhahayo mubtadici lama dhahayo maxaa yeelay fiqhigiis ijtihaadkiis hadduu gafana يعني هل أجر بوليه دوس هذا وافقا لما أجر بوليه مبتدئ لما ده هاي مجتهد وي لكن نينكي شرعي كان حايسته أيا أقول واشاف بدن تقول أقول واشاف بدن وهن لا هاي طعامك حل بهيو طعامك حل بهيو مركز طعامك بديل من السمين كرا وهي رسولك صلى الله عليه وسلم عليه حل جيس طعام أها وحلقة ما أنت طعام عهين زبيب أو كلمات طعام معها صومال الزبيب طعام رئيسي معها فاكهو نقضي bedelkiis waa ku bedelan karnaa baasto ku bedelan karnaa galleey ku bedelan karnaa timirta hadda agteena waxay ku tahay aad ay qiimo wallahi Soomaaliya aad ay u soo gashay in kasta lagu beeraynin hadana Soomaaliya timirta aad loo isticmaala bedelkiis zabiibka inta mar lagu dhigo waa lagu afuri karaa raashin qiimo leh way ishaha marka la gaaro asagoo markaas ay gaajo dareema imaan kara biyo abay timir cunay soonkiisa tadaawiis waa soo dukun kara asagoo nimadka imaanaya raashin ra'iisi oo noqday timirta faakiha asal ahaan luqada marka laga fiiriyo timirta faakida ku jirta laakiin markii aad loo koor galo dadkii isticmaalay la fiiriyo timirta raashin ra'iisi way luqawiyiinta waxay ku darayaan timirta waxay ku daraan faakiday ku daraan laakiin xaqiiqatan waa dacaam ra'iisi noqon kara marka wixii sidaas ah waa la bedelan karaa dacaamka loo bedelan karaa laakiin qiimo in loo bedeshido waa wax khilaafsan sunnadana khilaafsan manhajka rasuulkana khilaafsan marka zakada waa la ahkaamteeda ma dhameynin ma la rari karaa beledka ma la rari karaa beledka ma la rari karaa waqti aad u kooban way hadii daruuro ay jirin
zakada in beledka qofka wax zakaynay in masaakiinta la siiyo way ilaa hadii laga waayo masaakiin meesha laga waayo mooyane ray ibnu taymiya hadaan ku soo khatimo oo ku saabsan masaladan dambe hadaan haynay oo ah in qiimo loo bedelo in loo bedelin ibnu taymiya wuxuu leeyahay hadii si lagu gaarsiyo dacaam lagu gaarsiyo ay adkaato aan suurta gali karin dacaam la gaarsiin karin qiimo waa loo bedeli karaa lacag waa la gaarsiin karaa buu leeyahay marka wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.